ciidanka booliiska gobolka Togdheer ayaa gacanta ku soo dhigay dhalashahan ka soo jeeda dalka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda Oromada isla markaasina habeennimadii xalay haydna yaroo lagu magacaabo Xamdi Cabdi Xasan ku qashay isla markaasina gabi ahaanba dhiiga kaga shaqay tuulada waran oo kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer waxaana meedkeen inta yar la soo gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxaana sidoo kale lagu xidhay xabsiga weyn ee magaalada Burco ninkana dalqalka ah ee coonay intan yar taliyaha ciidanka booliiska gobolka Togdheer gaashaan dhexe Axmed Maxamuud Guutaale ayaa maray warfideenadu ku booqdeen xafiiskiisa waxa uu ka waramay ninkana dalqalka ee coonay intan yar ee Allah u naxariistay iyo sidoo kale sida ay ciidamada booliiska gobolka Togdheer ay ugu guuleysteen soo qabashada ninkani xalay todobadii meelaha iyo barkii ayaa qolay la soo hadashay deegaanka warana halka deegaanka waran degan baa la soo hadlay markaa waxay sheegeen in ilmo yar oo afar jir ah oo inan ah oo la yiraahdo Xamda Cabdi Xasan sida ay sheegeen luqunta laga gooyay baashi muxuu ahaa gudin marka aanu filayno ilmihii yaraa oo baan guriga ku dhexnimay guriga kaga tageen ilmaha yar sida la sheegay sida ay sheegeen ilmaha waxay kaga dhex tageen guri bay kaga tageen xaafad bay kaga tageen marka cidin lama joogin de waxaan filayaa inuu markii dadka waaweyn intuu iska eegay sidaan qiyaasayo sidaan malaynayo inuu intuu iska eegay dadkii waaweyn oo meelaha hadda ugu gabanayay markii dambe dadkii ka tageenna inuu de guriga u weydaartay bay noqonaysaa waayo qofku hadduu de ilaa xadkaas gaadho de noqdo de dhiigicab de waxaan filayaa in ay noqon karto uu yaqaana taatikada wax loo xado ama wax loo ugaarsado ama waxay doonaan ha ahaadaan cidii markaa uu de muxuu ahaa isticmaalaya de uu garan karayo sida bahalka ayuu u gabanaya oo de kulli saasaan filayaa inuu u gabaday waan marinaya markii dadkii waaweynaa ka tageenna inuu gurigii u daba maray deedna ilmi yaraa kurtuu ka gooyay kulli waxaan filayaa in ninkaasi kulli sida shaarkiisa dhiig baa ku yaala gacmahana dhiig buu ku lahaa de markii la qabtay waxaana runtii qabtay oo aad u dadaalay oo aan aad ugu mahadnaqayaa dadkii eelka ahaa ee halkaas deganaa ayaa arrintaas ka hawlgalay raadka ku joogsada waan ku uri waxaan u tilmaamay kulli raadiya waan ku uri iyaguna de aqligooday qabaano de xoolahaabay iyo geelaba dadka miyigu de way nagaba aqli wanaagsan yihiin runtii xooluhu marka kalumaan de way raadiyaan marka raadkii waan ku joogsano waan haynaabay yiraahdeen moobiladiina adigu waan kala qoranay ciidanna degdeg baan ugu diray markaas ciidankeena uu ku gaaray ninkiina nasiib wanaag area-dii meel xogaa u jirtaa lagu qabtay marka sidii baa ciidankiina ku gaaray sidii baa loo soo qaado halkan xalita loo keenay abaaro ilaa 9 iyo barkii habeenimo adigu waqti 10 ku dhow ayaa ciidanku soo galay iyo ehelkii ilmaha dhalayba waanu ku xidhan yahay saldhigga dhexe ee gobolka Togdheer ayuu ku xidhan yahay kulli waxa filayaa mar haday halka marayaan oo dadkii ajaanibka ay halkaas marayaan xaaladooda de waa laga maarmaan in de laga hawl galo oo gacan wax laga qabto intii karaankeenna isku soo wada xoriyo dhacdadan ayaa noqonaysa mid ku cusub guud ahaanba magaalada Burco iyo deegaanada hoos yimaada waxaana bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Burco ay si weyn isu weydiinayaan sababta ay xukuumadda Soomaaliland ay wax uga qaban weyday dadka soo galeetiga ka soo qulqulaya dalka Itoobiya wa Khalid Bakeyle fogaana raga xorta Star TV Burco.